wasiirada xildhibaanada maamulka jaamacadda ardayda waalidiinta marti sharafta kale ee ka soo qayb gashay xafladan quruxda badan assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan marka ugu horeeya u hambalyeeynaya ardayda dhamaysatay heerarka koowaad ee waxbarashada ee jaamacadda ee Boosaaso iyo waalidiintood iyo asxaabtood iyo dhammaan eheladooda iyo dadka reer Puntland guud ahaan iyo dadka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan xafladan farxadda leh ee maanta halkaan ugu dabaaldegayno runtii sida quruxda badan loo soo agaasimay runtii waxa uu u jecel yahay qofka dhalinyarada ah cimrigiisa waa marka maanta oo kale uu gabagabeeyo heerka koowaad ee waxbarashada halkaas oo ah meesha sida rasmiga uga ambaqaado nolosha cusub noloshaas cusub oo isugu jirta inuu naftiisa maareeyo inuu ehelkiisa maareeyo inuu ummadiisa uu ku dhex nool yahay uu ka dhex muuqdo sidoo kalena inuu wadada horumarka cagta saaro hadday tahay inuu tacliintiisa hore u mariyo iyo hadday tahay noloshiisa inuu kor u qaado marka maanta runtii farxadaas idinka gaarka inaguma aha annagoo dhan bay farxad noo tahay in jiilka reer Puntland ee qaybta ka tihiin iyadoo ay tahay sunno soconaysa inaan maanta idinka inagala qayb galno inaad farxadaas la wadaagno run ahaantii tacliintu waa saldhigga iyo horumarka bulshada qof kasta uu dareemi karaa heerarkii kala duwanaa ee ay soo martay Puntland iyadoo markii dawladdii dhexe ee Soomaaliya ay burburtay ee centralka ahayd inta badan caasimaduhu ay wax walba ku hooli jireen dib loogu soo noqday deegaanadan oo wax haba yaraatee yaalla aysan jirin ama agab waxbarasho mid caafimaad mid nololeed mid shaqo wax yaalay oo loogu yimid ma jiro waxaan ka mid ah dadka xilligaas u soo qaxay oo yimid noloshii bariga jirtay nolol aad u adag bahay marka la isku barbar dhigo muddo kooban oo 22 sano ah iyo maanta meesha ay marayso farqi aad u weyn baa u dhaxeeya maanta waxaan ka qayb galay xaflad iyadana lagu xusaayay 25 guuradii hay'adda diyakooniya oo ahayd hay'adii ugu horeeyay ee ka qaaday Puntland khaasatan magaalada Garowe waxay ku soo bandhigtay film ay ku cabiraysay 94kii markay howlaha bilowday sidii dadka iyo deegaanku uu ahaa waan rajaynayaa filimada noocaas in laga soo siidaayo telefishinada khaasatan kan Puntland iyo maanta sida ay tahay farqiga muddo 25 sano ah ay dadka reer Puntland gaareen runtii waa wax u baahan in hoosta laga xariiqo oo waqti la geliyo waxaas kuma imaan wax iska yimid wuxuu ku yimid dadaal dheer oo dad fara badan oo nafti hurayaal ah oo qaybo kala duwan oo bulshada ka mid ah ay galeen oo runtii ugu horeeyeen ismadii iyo dadkii waxgaradka ahaa siyaasiyiintii xilliga joogtay saraakiishii ciidamada aqoon-yahankii dumarkii dhalinyaradii bariga joogtay in fara badan ayaa ku nafwaayay qaar baa gaajo ugu dhintay iyagoo halgan ku jira qaar baa u curyaamay laakiin waxay maanta ku faraxsan yihiin inay mirahan oo kale arkaan marka waa guul runtii u soo hoyatay dhammaan dadka reer Puntland waxaan rajaynayaa idinkuna 25 sano soo socda in wax mucjiso ah ay dadkan inay gaaraan idinka in ba saldhig u noqon doona tacliintu waxay u baahan tahay annagoo runtii dib u eegi doona wasaaradda iyo hay'adaha khuseeya la taashan doona in la sameeyo siyaasado cusub oo tacliimeed iyo istaraatiijiyo cusub oo tacliinta Puntland la rabo in lagu gaaro haddii tacliintu uu ka dhumo qorshaha iyo hagidda siyaasadeed runtii wax kasta oo soo baxa waxay noqonayaan waxaan iska milayn oo aan isu dheeli tirnayn waxaan u baahanahay inay tacliinta khaasatan tacliinta sare ay mar walba ku jaan go'an tahay baahida taagan iyo hadafka dawladdu ama shacabka Puntland ay u socdaan hadba intii la garto
ama 20 sano ama 15 sano hadafka fog maxaa yeelay tacliinta iyo isbeddelka bulshadu maaha wax 4 sano u baahan waa wax markay u yaraato 25 ama ka badan u baahan in bulsho la bedelo laakiin waxay u baahan tahay isbeddelkaasi inuu qorshaysan yahay taariikhaysan yahay materialkii ama wixii loo adeegsan lahaa in isbeddelka lagu gaarana ay yihiin wax cad oo nin walba uu og yahay macallinku uu og yahay ardaygu uu og yahay sarkaalka tacliintu uu og yahay midka siyaasadda iyo kulli inta bulshadaba ay og yihiin oo hadduu mid khaldo midka kale uu qaban karo marka insha Allah waxaan rajaynaynaa Puntland mar labaad in dib loo asteeyo 25 sano ee soo socdo xagee rabtaa inay u socoto ama 20 sano ee soo socoto maxay rabtaa inay qabsato sidee rabtaa inay Puntland u ekaato maxay rabtaa inay soo saarto arday nooceeya dabcan marka la qeexo waxa Puntland ku haboon oo ay gaari karto ayaa wixii noqon doontaa in lagu saleeyo habka dhaqan dhaqaale ee la rabo in loo guuro ugu dambeyn shaqo kasta oo la qabanayo waxa weeye inay dadku nolol sharaf iyo karaamo iyo qanaaco inay ku noolaadaan wax kale oo hadaf kale ma leh ama dawladda ha qabato ama institution kale ha qabto waxa loo socdo waa dadka waa bini aadamka waxa la rabo in la karaameeyo oo kor loo qaado diintuna intaas u soo degtay inay bini aadamka karaamayso basharkuna wuxuu kaga duwanaaday makhluuqaadka kaleeto waa karaamada Ilaahay uu karaamay marka karaamadaas weeye in la kamilo oo la dhameystiro ujeedada u weyn marka aad iyo aad baad mahadsantihiin xafladan quruxda badan waxaan ka mahad celinayaa intii soo qaban qaabisay iyo inta ka soo qayb gashayba waxaan inii rajaynayaa farxad waxaan inii rajaynayaa nolol cusub waxaan rajaynayaa oo aan iyadana ku darayaa hadalkii wasiirka ee ahaa tacliintu macnaheedu maaha in dawladda iyo hay'adaha loo shaqeeyo sida aan marar badan ku arkay waxa ka dhadhansanaysaa maadooyinka la barto inta badan waxay saldhig u yihiin maadooyin la isleeyahay ama dawladda ama hay'adaha looga shaqeeyo waxay u baahan yihiin oo aan rabnaa inaan xoojino shaqooyinka gaarka loo leeyihiin inay dalkan ku bataan oo dadka Soomaaliyeed dad shaqaystay ahaan jireen shaqooyinkaas ay isu bedelaan shaqooyin sidii hore ka organize garaysan oo u baxa inay shirkado ama iskaashatooyin ama hal abuur qof leeyahay oo gaara inay saa u bataan si dalka culayskiisa dhaqaale loo kobciyo waxaad ogtihiin dalalka horumaray oo gaar ahaan Mareykanka nolosha Mareykanka 80% dadku waxa wada waa private sector-ka 60% private sector-kuna waxa la yiraahdaa waa entrepreneur waxa dadku leeyahay way shakhsiyaad ama dhowr qof marka annagu waxaad moodaa dadkii dhan inay rabaan inay public office ka shaqeeyaan ama siyaasadda ka shaqeeyaan ama wixii la mid ah marka waxaan boorinayaa dhinaca dawladdan ay xoogga saaraysaa wax soo saarka iyo ganacsiga gaarka ah iyo waxyaabaha la xiriira wax kasta waa laga ganacsan karaa waxaan ku faraxsanahay maalmo dhaweed waxaan arkayay kambaniyo inay ka abuurmeen garow xataa kambaniyada xafladaha agaasima eventska waa hal abuur fiican dhalinyaro badan oo dibadaha ka timaaday ayaa hadda xaflada xalan ka qayb galnay ku soo bandhigaya shaqooyin ay soo kordhiyeen dadkii gudaha joogana gacmaha u laaban marka waxa la rabaa in idinkii wax ku barto gudaha oo bulshada ka yaqaan baahideedan yaqaan inaad la timaadaan mashaariic jaamacadaha iyo dadka tacliinta iyagana waxaan farayaa inaysan academic course-ga kaliya aan lagu ekaane waxyaabaha skills-kana in la raaciyo muddada ay baranayaan iyo muddada ay jaamacadda dhameeyaan intaba oo la helo koorsooyin yar yar ama seminaaro workshopyo 1 week iyo 2 week iyo lamida oo qofku xirfadiisa si joogto ah kor ugu qaadaya ama fursadaha markaa jira soo bandhigaya waxa kale oo muhiim ah iyadana in laga shaqeeyo jaamacad walba faculty qayb kamid ah wax ka soo saartay iyadana waxay u baahan tahay standardization in jaamacaduhu isku ekaadaan sidoo kalena association yeeshaan maada kasta oo dalka ka jirta dadkeedu isku dhex galaan khibradaha isweydaarsadaan waxa la rabaa jaamacaduhu inay khibradda iyo aqoonta iyo research-ka isweydaarsadaan
si cilmigu uu noqdo cilmi isku eg oo aysan noqon ardaydu markay jaamacadaha ka soo baxaan arday dalal kale ka kala yimid sidoodii marka waxaan rajaynayaa waxyaabaha ku saabsan syllabuska iyo arrimahaas inay wasaaraddu iyadana gacan ka geysan doonto oo runtii guidance saldhig u ah baahida dalka ee lagu salayn doono haddii ilaahay idmo annagoo og duruufaha iyo awoodaha dawladduna ay leedahay ay kooban tahay waxaa daliil inagu ah jaamacadaha dalka ku yaalla oo dhan waa jaamacado in dawladdu maaragtay gacan weyn ku lahayn marka haddii waxbarashadiinnii hoose dhexe sare ee dad gaar isku abaabulay ay soo saareen shaqooyinkiina waxaa la rabaa idinkuna inaad si gaar isu abaabushaan oo dawladdu culays badan ma qaadi karto xaaladda lagu jiro laakiin dawladdu waxay u baahan tahay dad shaqaysto cashuur ay ka qaado oo dadka kaleeto aan tabarta yaroo miyiga ku nool ee wax ugu qabato haddaa idinkii shaqayn oo cashuur keenin awooddeenna waxqabad way sii yaraanaysaa maalinta ka dambayso marka runtii waan ku faraxsanahay kulankaa inaan igala soo qayb galo waxaan rajaynayaa mustaqbal fiican baan ii rajaynayaa guul baan ii rajaynayaa waa salaamantiin guud ahaan wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu